shala marka uurkay ninkii waxa taa igu dhahay ilmaha dil oo dilayo barafka igu jiiday qowga dhacay gabdhahaani oo kale social media aad ay ugu soo bateen iyagoo qurbaha jooga dabowgii 15 hal mar leeyahay soo ag fariistino tadaw ku dar wallahi 15 Bluetooth device is connected successfully. مسلمات ka baxay dad ay u tilmaamay ayaan xirsan bartuwal ugu tilmaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكيني وولالكيني ولا الله قلبي شخصياتك قلبي ونكسر انت سماها وصاحبك سلام مذا بس صوبلنا ايان هودا ايدين سو مرسيي قيبت سبسكرايب صار لبدا نبريو ايدين كم مقنا لكن سايجي عشينا اللياو انستغرام تيك توك ميل والبو خروح كو ديغلا maxaa ku dhacay guushayda farxadayda hamigayga riyadayda idinku idinka bilawda idinku dhamaada qulubta idinka ogsoona iyo amira adigana ana ka daran dhe anyway inta markaa ka gudbo maanta waxa idin haya reaction buuqiisa wata kaftankiisa wata qaraxadiisa wata saameyntiisa wata sidoo ii galay waa inta tusay wajigayga ma aragtan bal qaybta falanqayntu waa adiga qaybta reaction kana waa adiga maqaayaduna wada leenahay cusbada ku yar subscribe shuqsi no bilaw reaction keen الكائن أصيغ مصلحة صار نوب إيه كحصد بو أو حلي ساعة بجيدة وحلي كمان كلن كاجا كمان واري كودلوي سمر كاجا كده واي كحصد يام أنا بدرك واحد مصلحة أنا قبيلة يسوع دقات كان واقع على نبيل كسور ده مصلح سكرة ساسو يداي waxaan dharaftarkii qadar alla macnaan ani waxa la biga tahay halisa gashay halisa gal abinku bejo leeyo ku sarreey laakiin ma sha Allah meel kumanaan qof ay joogaan waxay ku leedahay waa leeyo ku sarreey yani jini saqajaan ay ka dhaxadlooy weel faaruq ay wax ma jiraan tada kale waxaan fahmi waa hoteelada Muqdisho sanadahan dambe waxaan ba aragnaaba yaa suuq geyn loo sameeyay dumarka dabadooda businesskiibu waxay u arkeen gabadha inay gadaal u jeesato gaari gacanka dambe dhoola tus military ka samayso fanaankana uu meega qabsado ya marka raaxa family ya hoteeladii loogu talagalay in lagu nasto shirarka lagu qabsado waxaaba laga dhigay raaxa entertainment ka waran shala marka uurkay ninkii waxa taa igu dhahay ilmaha dil oo dilayo barafka igu jiiday qowga dhacay ma baantay ala dila inta maantana wiilkayga laba shay inta u soo gaday adeer saas aabo fiican lagu ma noqdo ma baantay waxa aragtid samee anigu waxa ku sheegayaa ma hado Caaishadii jibicsanay oo yiisay oo ku jeclahay kaama marmo markii la soo colo barnaamij dhaqan baa maxaa kaasi ninkayga weeyaan waa ninkaygi naagta jirtanii maanta sixirkii iyo maskaxda ay iga yeesatay wixii dhuma baaba'een haddaan dankaa leeyahay haddaan sikin ixtiraam aan kuu hayo shala markii la kaa weydiin oo lahaa itus ninku muxuu ahaa gadaasheeda ma soo dhigi lahaa laakiin markaa waa ku rabe horta gabadhaani boogteeda Allah u dhayo laakiin hal mid aan qaba aniga gabdhahaani oo kale social media aad ay ugu soo bateen iyagoo qurbaha jooga haddana ilmeynaya dumarka Soomaaliyeedna waa qalbi jilcisiin abaayo waa ka xumahay waxa soo kala qalad waay ani waxaaba aaminsanahay karbaash kale in loogu daro si uu damiirkooda u noolaado xaqiiqatan fiiri waxay ku nooshahay qurbaha especially Europe xaqooda koowaad dumarka leh labaad caruurta leh saddexaad waxa iska leh khaniiska afaraadna waxa iska leh xoolaha eeyga iyo bisadaha ragga shanaad waa ya ragga sida loo xooray shanaada laga dhigay iyadoo halaas opportunity haysata ay waxay ku leedahay nin baa garaacay ana urle wadada igu jiidi du idilo cafin jiray wax kasta markuu ii soo laabtay waa raacay okay ku dhahay waa aaminay tada kale waxa ayaan dara ah oo nasiib dara ah adiga oo 2023 nool in aad u noolaato 100 sano ka hor hooyooyinkeena sida loo dhibaateyn jiray ya taana waxay bahdil ku tahay dumarka Soomaaliyeed aan jeclaa lama yaabin wuu dilay lama yaabin waan aaminay lama yaabin waan u dulqaatana lama yaabin
laakiin waxaan la yaabay labadaydii caruuraha oo aan furo iigu jirin oo midna uu caddaan iga siiyey midna hore layga qaday ayaan uur kale sii yeeshay. okay waxaad tiri wiilkani shalay waa jeclaa hadda waa nacay adduunka ugu nacbanahay oo hadda maxaa u dacweyn laadahay marka weli aa u oynaysaa muuqaalka xiga تضو كدر تضو كسدر صح تطعمه طبعا تضبوه جي عشان يطعمه بوبسيدي يا He said 22 كلها. معقول مع انه 22 مرة السوق دي ارتع تضبوه جي عشان توصل ورا هذا سكول هذا سكول هذا سكول لا تنسدح لا تنسدح هذا سكول ما بيرمي والله جوابك. لا تنسدح والجواب ولي بس نحرس له شيء Bluetooth device is connected successfully. محالا نحسب. تفضل استجي. ايه تضو كدر تبني أفر تضو كدر. تضبوه جافر ترويع وين اخوي عشان تقول لي دي هذه وادي واعي ودي معقول ما انا عشان تقول dirisle mar walba wuxuu iska dhigdhigaa qof adag inuu yahay mugta aniga gabar lacag ma siinayo aniga gabar uma dhawaanayo aniga gabdhaha wax ma tarayo uu ku leeyahay ya hal mar leelisu ag fariistino tadaw ku dar wallahi shaqay tawag balkanoo wax keen dhahay ka waran xitaa dharkiisu waa ku dari lahay ya hal mar leelisu ag fariisti bastaale haddana u fiirsiyaa meeshaanay baato dhar gabadhu ku maqiyay wallaahi saaxiibkeyga waa karkaray صح تطعمه طبعا تضبوه جي عشان يطعمه saaxiibkeyga dirisle waa maasha allah sanadahan dambe waxaan ka dareemaa inuu aad u bislaaday intaas waa iska kabta muuqaalka Ice cream, thank you. Ice cream, thank you. You're welcome, my friend is welcome. شاهدة خلخنا بقول كي جالسة شاشة وين أنت شاشة Ice cream, thank you so much. Thank you. waxaan maqli jiray kaamirada waa lagu waashaa marka kaamirada waa lagu waashaa oo baratik ee waatana Ice cream, thank you. Ice cream, thank you. ya ice cream dhirkaa joogtaa soo laaba bal muuqaalka xiga waxaa lagu tilmaamay inaan ahay kuwiikar oo muslimnimada ah ka baxay dad ay u tilmaamay ayaan xirsanay bartuwaa lagu tilmaamay ani ayaan xirsan macaayo qof bini'aadina oo soomaali ah diin alaale diintu haysto iyo dhaqan alle dhaqanku haystaba qof intuu meel soo istaago caynaya ma ihi laakiin ani ayaan xirsi ma ihi lambar 2 ma ihi lambar 3 ma ihi lambar 4 ma ihi hadda boqoraysigan ka hor 5 daqiiqo ka hor meeshaana salaad maqrib kusoo dukanay buugaan haddaa isleedihiin soomaali oo caynaya oo wuxuu kor u qaadaa dhaqanka maraykanka waxaan dhihi lahaa akhriya jabtarka 15aad aan ooga sheekeynayo wiilal caddaan aan isla shaqayna mayn waxaan leeyahay siligayga garabka ku wataa way igu qoslaan way igu kaftamaan cusurnimada dareemay sidaas awgeed shaqada uga tag waliba wiilasha waa describe gareynaya haddii ay jirtaan oo basbarada waa laga qaatay waa dad xabsiyo galay waa dad daroogooyin lagu qabtay wax taas ka xun qof bini'aadan lagu tilmaamaa jirto ani qof soomaali ahay wiilkani dhowr jeer aan arkay tiktok asoo aad loogu dhegan yahay Somali cowboy waxyaabaha igu yaabka badnaa waxaa wiilkan waxaa lagu haystaa maxaa buug u qortay oo aad dabajeex u qaadan weyse ya maxaa maraykan cilmigaada iyo aqoontaada ugu imaaday oo aad 20 sano digir iyo saliid qaxootiga ugu cuni weyse intaas bisa lagu haystaa waxyaabaha igu yaabka badnaa aan arkay waxay tahay kuwa qaar waxay leeyihiin ninkani waxaa maraykanka keenay nin inaag isqabo oo haysta diinta buddhismka qalad weyn uu gale soomaalida kumanaanka qof maraykanka ku nool yaa keenay makasay qaxootiga weliba ku imaaday kaniisada keentay waayo qaxootiyaha dhan dadka soo rara kaniisada u badan marka adiga daahir baa tahay marka